بسم الله الرحمن الرحيم قلدينا صحافة إيو وحنكو السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي كل ديمات هالقان طادي قلت معدين واحد يقف اللسان والله صدح كلمة عن قضب ونوكا هالله تكوبات وحبريهن سوشيال ميديا كوبتنا أو سيفول حن لو أديك سنة لو وريتشني لولكا buurta kala jeexan runtii de xilbaanaan u nahay dadka meesha degan waa dadkii aanu matalinayeen odayaasha u hayn haddii ay qaladaas soo baxday rag badan oo odayaalaha muddo karo meesha joogayna ay warar badan naga siiyeen ka xilbaan ahaan waxaanu damacnay inaanu xogaal u noqono bal horta xaqaaqa dhabtaa ee jira iyo sida ay wax u socdaan sida yihiin marka waxaan doonayaa inaan maanta bulshadana u iftiimiyo cid kastoo dan kale ama ujeedooyin kale u adeegsanaysana aan idhaahdo waar de bal si ka qurux badan oo loo hadlaaba jirta koow waxa ah arinta halka ka jirta waa la degay waa dhab dad baa yaala waxaan soo weynay oo aanu ka daba tagnay totally wax fulin la yiraahdo oo imika soo baxdo maxkamada ka soo baxday oo socoto lagu fulinayo dawladii go'aan ku qaadatay inaanu jirin waxaan ogaanay in ilaa 2005tii dacwadi ka socotay dhulka kana garlaya kana lahayna lama oran karo ilaa ay maxkamadaha wax ka dhamaadaan kiiskaasi maxkamadda rafaan baa laga qaato rafaan buu yaalaa maxkamadii sare u hadhay dubeegistii baa hadhay jaran iyo process dheer ayuu maraya kiisku mar hadduu kiis maxkamad ku jira yahayna dibadna lagama garnaaqi karo lagama garsoori karo waxna lagama oran karo marka waxaan leeyahay ummadda intii ku guda dhacdayna waxaan leeyahay warda ilaahay ka baqa oo toobad keena oo kiisasku markay maxkamadaha ku jiraan ilaa ay dhamaadaan waxba lagama oran karo maxaa buuqa kiciyay waxaan filayaa dad ujeedooyin gaar ah leh ayaa dadkii deganaa dhulka albaabada ku garaacaya oo lew cagafii idinku soo socda waa la idin barakicinayaa guryaha dhisan baa la duminayaa waxaan kana keer ya iyadoo lala dagaalamayo oo ujeedooyinka ka dambeeya ay yihiin in madaxweynaha lagu cambaareeyo lagu qardoofooyin lagu gaarsiiyo waxaan leeyahay cidda sidaa u hadlaysa madaxweyne iyo musabixi toona baareen mayse qaranka sharaftiisa iyo karaamadiisa ay caayayaan marka waxaan leeyahay wardee ummad baynu nahay oo dal baynu nahay oo dal adduunyada ixtiraaf ka doonayaynu nahay oo inaynu fadeexada noocaasa dibad iyo gudaba inagu marino oo aynu dalkeeda cambaarayno oo madaxda qaranka de aflagaadayno adeer qaran ku noqon maynee aynu ka dayno oo kiisku waa dhibane waa laba qof oo isaysta miduun baa garta helaya markay wuxuu maxkamadaha ka dhamaadaan baa wixii tala laga gali kariyo arin laga gali karaa waan aaminsanay dad sharciyo soo saareeyay baa jira de faylashiisa fayl sharciyo noqonayaan qofkuna dhowr si ayuu ku iman karaa ama qofka dadkan maxkamadda iskuula jiruun buu noqon karaa oo de darafka oo ka maxkamadda ku jira waxa leeyahay maxkamadda arinku waa ka dhamaaday kii dadka maxkamadda iskuula jira iyagu sifahay doonaan hawiiyana ay uga iibiyeenna de waxa weeyaan adiguna bal horta dhinacay u dhacdo markay dhacday ama kii wax ka iibiyay uu yeesho dhulkii ama uu yeelan waayo ayaa wixii kale arrin laga gali karaaba uu banaanaanaya runtii marka waxaan leenahay de waxa weeyaan wixii arrimaha dhulka ku saabsan ee yaala ee process maxkamadeed ku jira de waxa weeyaan in social media lala dhaxararo oo la isku haysto oo cid saysato maanta sariinaysa ma jirtee halkaas ay ku jirtaa waxa kaliya soo raaca waxa weeyaan ka wax ku haysta iyo ka lagu haystaba dhulka intay maxkamaddu ku jirto waxa la yiri waa la hakiyay marka wax dambe in laga qabtaana oo ka haystaana uu ka qabto ka lagu haystaa uu ka qabtaana intaas ayuunba meesha taala intaana halka loo daayo si gaar ah waxaan la hadlaynaa dadka dhex cararaya ee dadka guryaha ku garaacaya ee meediyaha u adeegsanaya intay warbaahinta geeyaan hadlada haya waxaan leenahay waar ilaahay ka baqa arrinka joojiya mid kale maalin horena dhinacna waan la hadlo waxaan leeyahay war dadka annaga u xillibaana maalin kastana arbu is qabsada
lama dhex cararo labada isku qabsan dhul ay haystaan lama dhex cararo waxaanu leenahay war dadka wixii aad taraysa ee taakula ee ilaahay kugu ogyahay aan munaafaqadi ku jirin dee waxtarka cid kasta way u furantay laakiin maaha inaad mixnad maalin walba ka dhex raadiso anu waxaan isleeyahay baalka duqsiga la yiraahdaa uu duulduul badan yahay oo maalinta u dambaysa maraq bayloon buu ku dhacaa waxaan leeyahay arrimaha umaduhu isku hayaan adiga laftigaagu ka dub uga joogso oo wixii tala waayeelnimee adigu waajib kugu ah haddaad soo ku banaantay laakiin ha ku dhex milmin dee intii aan odhan lahayn war yaa u xidhaa odhan maynee waxaanu leenahay war dee ha noo gacan dhaafin oo marka arrimuhu maxkamadaha ka dhammaadaan baanu xaq u leenahay inaanu wixii yaalla markaa xallino oon dhex gallo dee hadeer duulduulkan jooji oo taa ka jooji baan taana nacnac odhanayaa waxaan u gudbayaa qodobka saddexaad oo ah isna arrintii ka dhacday shaqaaqadii boorama ka dhacday waxaan isleeyahay arrintaasi boorama iyo waddanka maanta boorama sida u eeg tahay iyo sida u qurux badantay iyo waxay hiigsanayso dee berdhawadu waxaabad maqlaysan inay caasimadda labaad horta dee waabay riixanayso burcaabay ka riixaysay caasimadda labaad caasimadana waabay isu dhigayso dee way ku soo socotay horumarkaa iyo tadawarkaa ay gaadhay cid la dagaalamaysa hargeysa lama soo weeraray boorama la weeraray boorama ninka weerarayaana waa inay baabada doonaya nin reerkiisii iyo gurigiisii duqaynayo duminaya weeye nin horumarkii la dagaalamaya weeye waxaanu u soo jeedinaynaa dadka gobolka yaalla ehlu caqliga ah inay iska qabtaan waa qodobka labaad waxa weeye Soomaaliland gudaheeda kama imanayaan nimankaas dee dawlad aynu jaarnahay oo Itoobiya oo aynu walaalanahay oo aynu amniga iyo dhaqaalahaba ku saaxiibnahay baa inaga xigta xagga in mushkiladaha iyo dadka fidmo walahihi aynu dawladaha inaynu isku korino waxaan iyagana leenahay dee arrin noqon mayso waa in tallaabo degdeg laga qaado dadkaas Itoobiya galeen de waxa weeyaan Itoobiyana inana cadow badan oo leedahay baynu ka ilaalinaa de cadowgeenu haduu galana oo ay ilaalin weydana de mushkiladeeda yeelanaysa marka waxaan leenahay dadka isaga dhex shaqaynaya labada xuduudoodna tallaabo degdeg ah ka qaado oo waliba gacanta ha ku soo qabato qarankana ha ugu gacanta ha soo geliso cidii dambiga geysatay iyo ragga adsabada u joogay ee fidnada ka wada ee ka abaabulaya ama ka soo degaa ama ka dhoofa waxaad ka warantaa arrinkii qodobka afraad ee doonayay inaan ka hadlo waxa weeyaan Allahumma salli ala Muhammad waxa weeyaan faragelintayn dawlad goboleedka Puntland uu ku hayo goboladii bariga Somaliland waxay adduunyada u ballan qaaday ama heshiiskii la galay ee markii arrinkii halka tukaraq laga galay in colaad la joojiyo oo xadgudubyada la joojiyo oo nabadgelyo lagu soo dabaalo wada hadal halka ay taagneed lagu joojiyo Somaliland heshiiskii la qaatay ee la inagu dhaxgalay beesha caalamku qayb ka ahayd way fulisay waxaanu ognahay ilaa maalintii heshiiska la galay ilaa maanta in faragelin qaawan ay xuduudihii Somaliland ay ku hayso dawlad goboleedka Puntland looma awood waayin looma taag waayin laakiin waxa loo turayaa shacbiga deegaanada yaala ayaa loo turayaa waa kow meel lagu galgashay oo la isku dul qabsadayna dadka shacabka ku baabaa Somaliland waxay waay arag u tahay ama madaxdan qaranka maanta joogta waxay waay arag u tahay colaadda ama dagaaladu waxa ay keenaan ay waay arag u yihiin dadka ku burbura maaha ciidamada Soomaaliyeed shacbiga iyo deganaashiyaha iyo dadka ummadda noloshoodu inay baabaaday aaminsan yihiin marka Somaliland waxay qaadatay inay la xijeclo badan ka qaato maadaama dalkii iyadu leedahay oo caalami heshiis caalami xuduud caalami ay ku jirto waxaanu qaadanay ninkaasi waxa uu doonayaa inaynu shacabkeeni ku dhex dagaalamo oo intuu guryaha soo galo uu yiraahdo Somaliland soo gasho way awoodaa saaka in sheeg ninka la yiraahdo wuxuu doonayaa inuu dhahar yimaado waa la ogyahay xukuumaduna way ogtahay laakiin talaabada xigta waxa weeyaan in ciidan qaado ay geliso Soomaaliya taasina maxay keenaysaa cidda wax ku noqonaysa ku baabaaysa waa shacbiga lagu soo dhufayska laga dhiganayo lagu gabanayo marka ninkii colaad doonaya de meel kale oo ciidamadu joogan ha soo weeraro ciidanka meeshuu joogo de haduu dani doonayo inuu meel qabsado ciidamada qaranka Somaliland meel ay yaalaan oo cad baa jira haduu awood u hayo Somaliland kaga saaro kuwa ha weeraro laakiin inuu shacabkiya maatida maalin walba ku dhex meeraysto waa laga qurux badan yahay waxaanu leenahay de waanu arkaynaa laakiin dadkan u turaynaa marka taana waxaan leenahay waa shacabka deegaanka ku sugani looma taag waayino awood looma waayino idinka la idin turaya de waa inaad tiraahdaan ninka gardarra doonaya warda ciidan halku yaalo waa taqaanaaye dhaharraha ku meeraysan baranaha ku meeraysanine ciidamada meesha ay joogaan de aduu bal ka saaro ka dhaqaaji marka taana intaasan ka horreeyo. Assalaamu calaykum.